وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قاذنيني قصص في القرآن الكريم. qisadan maanta aan inila wadaagayo waa qisatu saba. saba waxaa inoogu sugan duruus iyo cibar inaan ka faa'iidaysanno. walaalayaal, suurad idil ayuu ilaahay kaga waramayaa saba. saba nin magiciisa weeyaan, nin la oran jiray camr ibnu caamir, magiciisa ayaa la oranayay saba. kadibna qabiilkiisii ayaa qaatay, qoomkii saba ayaa la oran jiray. kadibna meeshii ay deganaayeen ay ku noolaayeen ayaa saba loo bixiyey. odaygan saba waxa uu dhalay 10 wiil. 6 wiil yaman ayay la degeen, 4 dhinaca iyo shaam ayay ku noolaayeen. 6dan wiil ee yaman ku noolaa waxay lahaayeen taariikh. waxay samaysteen mamlaka, boqortooyo ayay samaysteen. xukunkuna dhexdooda ayuu wareegayay. ilaa haweenaydii boqoradii balqiis waqtigii nebi sulaymaan calayhi salaam iyaka ayay ka mid ahayd. walaalayaal, caasimadda saba waa ma'rab. marka laga waramayo saba, meesha ay ku taalo, mowqica ay ku taalo, waxaa la yidhaahdaa mowqic juquraafiya oo istiraatiijiya oo aad iyo aad muhiim u ah ayay ku taalay. buuraha hareeraha ka xigay, buuraha roobka ka soo daata, roobka ku da'a buuraha, daadka ka yimaada, iyo dhowr webi oo meesha soconayay oo biyo ah ayaa marayay. meel barwaaqo ah ayay ahayd. sidaa awgeed waxay go'aan ay ku gaadheen oy tashadeen inay samaystaan biyo xidheen, inay samaystaan biyaha ka soo baxaya, ka soo daadanaya buuraha iyo webiyaashaasi, inay biyaha faraha badan ee meesha maraya inay ka faa'iidaystaan oy samaystaan biyo xidheen ayay go'aan ku gaadheen. haweenaydan balqiis, boqoradaasi, ayaana samaysay. waxaa la oranayay sadu ma'rab, waa biyo xidheenkii ma'rab ayaa magaciisa uu ku caanbaxay. biyo xidheenka ay sameeyeeni
waxay yidhaahdaan 9,600 oo hektaar oo dhula ayuu waraabinayay. biyahaasi meeshaasi aad iyo aad bay dhararkoogu u dheer yihiin. biyaha meesha ay ku samaysteeni way farabadan yihiin, aad iyo aad ayay u farabadan yihiin. waxay yidhaahdaan waxay u sameeyeen ila yar, meelo yaryar oo aad iyo aad u cajiiba, oy biyuhu ay ka soo baxaan, oy magaalada ay waraabiyaan iyo beeraheega. waxay yidhaahdaan qaabka ay u sameeyeen qaab aad iyo aad u cajiib badan ayay ahaayeen. runtii magaaladu waxay ahayd magaalo yar oo qurux badan, oo dhir iyo beero ay hareeraha ay ka xigeen. magaalada marka aad joogtid Ma'rab ama Saba marka aad joogtid, dhinaca midig beeraha ka qabanaya, dhinaca bidixna beeraha ka qabanaya. beerahaasi dushana way iska haystaan, way is haystaan ilaa iyo dhul fog, ilaa iyo Shaam laga gaadhayo. dhulku cagaar iyo akhtar ayuu ahaa iyo nicmad aan la arag. sida awgeed culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la oranayay jannatul jinaan, jannadii jannooyinka ayaa la oranayay. waxaa lagu tilmaamaa sanadka oo dhan biyuhu way u socdaan, dhulku inuu barwaaqo u ahaa, wax badan oo khudrad badan iyo wax walba oo midho ah ay u baahnaayeen wuu soo baxeen. geeduhu way is haystaan, dhulku waa cagaar, waa barwaaqo, nicmad aan la aragoo sanadka oo dhana ilaahay ayaa u nicmeeyey. waa fadligiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa la yidhaahdaa waxa cajiiba, midhuhu ma xumaanayn, ma fasaadayn midhuhu. dhulkuna intaa ilaahay wuxuu u raaciyey amni baa jiray, cabsi ma jirin, lama cabsanayn. hadhkuna wuu jiraa mar walba, cimiladeedu iyo jawigeeguna aad iyo aad ayuu u fiicnaa. waxaad maqlaysaa shimbiraha oo heesaya, waxaad arkaysaa laamaha oo tuwaysaya oo ciyaaraya ayaad arkaysaa. wax dhiba meeshaasi ma jiro, abeese laga cabsan, jiir laga cabsan, cayayaan laga cabsan, tafki ma lahayn. ilaa ay yidhaahdeen qofka safarka ka yimaada ee meel kale ka yimaada ee safarkaa ku soo daalay, ku soo dhibaatooday, waxaa laga yaabaa ee safarkaasi meelihii u jiifsanayay nadaafad daradii inuu injir yeesho, inuu indhiqil yeesho, inuu cambaar yeesho. markuu yimaado Saba iyo barwaaqadaasi waxaasoo dhan way ka daadanayeen oo uu ka bogsanayay ayay culimmadu yidhaahdaan. meeshaasi haweenaydu marka ay doonayso mudhaha inay soo gurto ama khudradda ay soo gurto, salladda ama zabiilka ayay madaxeega ay saaraysay, geedahaasay isku hoos maraysay. dhirtaa soo daadanaya, khudraddaa soo daadanaysa, midhahaa soo daadanaya. iyadu salladeedaasi ay madaxa saaratay, dariiqaasay iska maraysa. midhahaa daadanaya iyo khudraddaa daadanaya ayaa buuxinayay. marka ay soo noqoto midho iyo khudrad ayaa salladii u buuxaba. waxaa jirayay meeshaasi safaradu rixlata ashitaa'i wasayf. marna Shaam baa la tegayaa, waxbaa laga soo iibinayaa, Yaman baa la keenayaa. dhulku wuu isku xidhnaa. nicmadda qofkii dhoofaya ma dareemaynba safar iyo dhibaatadiis. markuu waxoogaa dhaqaaqaba meeshaasaa loo hoyanayaa. sahay lama qaadanayo, biyo lama qaadanayo, gaajo iyo faqri lagama cabsanayo. qofku siduu u socdo meel yaroo ku nastuu helayaa, khudraddu cunaya, biyuhu cabbaya. waa la garanayaa subaxdii hadduu baxay, duhurkii xagguu hoyday, casarkii xagguu hoyday, maqribkii
waa la garanayaa dhulkuna aamin ayuu ahaa meeshaasi wax laga cabsanayo isbaadhasho ma jirto tuug ma jirto qutaacu tariiq ma jiro wax dhiba oo meeshaasi jira ma jiro amniguna aad iyo aad ayuu u xoog badnaa waa kii ay lahaayeen qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiid xoog baan haynaa ciidan baan leenahay wax laga cabsanayo ma jiro waxyaalaha ilaahay ugu nimcaystay waxaa ka mid ah axibatii fillaah beertu shaqay rabtaa dadaal bay rabtaa in la beero in waxay rabtaa la xafaajo oo la guro oo laga shaqeeyo ayay rabtaa xagaaf bay rabtaa waxay rabtaa in la fajaaso oo laga shaqeeyo ayay rabtaa waxyaalo badan ayay rabtaa in loo hagaajiyo moosaska ayay rabtaa waxaas oo dhan ilaahay uga nimceeyey iyaga way daadinayeen midhuhu uu iska soo baxayay ilaahay nicmadihiisa ayay ka mid tahay nicmadda ay ku noolaayeen khayrka ay ku jireen bashbash iyo barwaaqo dadku aad iyo aad bay u nimcaysteenoo wejigooga ayaad ka garanaysay quruxda nasashada siduu wejigoogu u faraxsan yahay u dhalaalayo cagaarka ay arkayaan awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala rasul ayuu u soo diray inay ilaahay caabudaan inay ilaahay gartaan inay ilaahay ku shukriyaan nicmadaha ilaahay u siiyey subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ilaahay baa yidhi lain shakartum la asiidannakum haddaad igu shukridaan waan inii beerin laakiin haddaad gaalowdaan walain kafartum ina cadaabii la shadiid cadaabkaygu wuu daran yahay maxaa dhacay way ka gaaloobeen nicmadihii ilaahay way inkireen jiritaankiis waxay caabudeen cadceedda ayay caabudeen waxay yidhaahdeen annaka xooggayaga iyo dhididkayga kula soo baxnay waxan oo nicmada iyo khayrkan biyahan annakaa joojisannay oo biyo xidhaanka annakaa samaynay meelaha yar ee moosaska ay ka soo baxayaan annakaa samaysannay ilaahay wax uu nagu leeyahayba ma jira yidhaahdeen ilaahay bay ka gaaloobeen rasuulkii bay ka gaaloobeen diintii bay iska diideen nicmaddii ilaahay ayay ku kufriyeen waxay caabudayeen cadceedda waa kuu hudhudku nebi sulaymaan u warramayey waa kii uu lahaa waji'tuka min saba ayaan kaaga imid aniga oo wada binaba'in yaqiin war la hubo innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walahaa carshun cadiim waxaan helay dad ay haweeney maamulayso oo ilaahay wax walba u siiyey wa uutiyat min kulli shay haweenaydaasi weliba walahaa carshun cadiim kursi weyn sariir weyn oo kii maamulka ah ayay ku fadhidaa oy haysataa wajadtuha wa qowmaha yasjuduuna lishamsi min duuni illaah waxaan helay oon soo ogaaday oon soo arkay haweenaydaasi balqiis boqoraddaas iyada iyo tulkeedba inay caabudayaan cadceedda ilaahay sukadii subxaanahu wa tacaala wazayana lahum ashaytaanu acmaalahum camalkoogaa xun inuu shaytaanku u qurxiyey ayaan arkay hudhudkii baa la yaabay dadka ilaahay u nicmeeyey wax walba uu siiyey ee barwaaqada ku jira ee ilaahay inkiraya rasuulkii ka gaaloobay diintii ka gaaloobay ee cadceed caabudaya waa wax lala yaabo axibatii fillaah ilaahay bay ka gaaloobeen diintii bay ka gaaloobeen kadibna waxay yidhaahdeenba noloshan aan ku nool lahay ee qofku uuna daalayn uuna rafaadayn nololba maba ahaba nolosha aan doonayno waa nolol rafaaday yidhaahdeen waxaan doonaynaa in aan
sahay qaadano imika meeshan kii qaniga ahaa iyo kii faqiirka ahaaba intuba way simayeen laano qofka joonaya male midhahan ay cunayaan biyahan ay cabayaan khudradan ay cunayaan way nasanayaan safarka shaam iyo dhulka la tagayo kii xoolaha lahaa iyo kii faqiirka ahaa intuba way simayeen meel baa lagu nasanaya wala cunaya wala cabaya waxay doonayaan in la kala baxo kan uu soo baxo maxaan ku idhaahdaa taajirkii uu muujiyo nicmadu haysto iyo xoolaha uu haysto iyo gaadiidkiisa iyo siduu u nool yahay inuu ka faqiirka ah uu ekaado ma doonayaan waxay yiraahdeen malal baan ka qaadanay caajis baan ka qaadanay qaabkan maba doonaynaba يعني إنسانكو وقوقا وكبرا وإسقاط قاضا مركو نعمت بدن وهلو وسيدي ريب بنو إسرائيل أي نبي موسى إلهي مركو كو يري اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم عنتها نبهنا هي لهدين مركا ساوى حدا يري مصر قلع وحد دونتان أياده ليسان إلهي عنت الديار سبقوا كانوا مني والسلوى وحسن لو كان كدبنا وحي لهدين مي فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وحمر ربنا إلى هذين وحلولك كسو بحي أيان ربنا بصشي إيو وحربنا بين هذين فولكي إيو عدستي إيو وحسن ربنا ومدح أدقه إنسانكو مركو نلشا وفهمي وايو وقوقا marka uu nolol macaan u helo wuu qooqaa ilaahay waxa uu yiri wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha badana bu ilaahay yiri inta tuulo inta wadan inta magaalo in halaagnay markay nolosh ceeshkeegii iyo nolosheedii ay ku qooqday bu ilaahay yiri ilaahay wuxuu ka waramayaa magaalooyin fara badan ilaahay waxa uu yiri wadaraba Allahu mathalan قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إلهي وحوني شيغيا إنما ما هي قرية أهيد مد آمنة أو دقن أو أرزاق ديدو مال والبقوة إيمانيو فكفرت بأنعم الله نعموين كي إلهي أي كقالو دي إلهينا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحوهوي قاچو إيا فقر إيا دباطو إيا سلع أيا لوغو بدل نعمة إلهي محايا لي إياكا وحا سميني إياكا كقالوا بيدينتي إذن كوحذا إلهي أنمعي رسبا wanaaga iyo nimcadaasi iyo roobkaasi iyo barwaaqadaasi iyo amniga ay haystaan way ku kibiriyeen way gaaloobeen alcad bay caabudeen way inkireen ilaahay wuxuu yiri fa'aradu way ka jeesteen wixii oo dhan way ka jeesteen maxaa dhacay ilaahay wuxuu yiri fa'arsalna calayhim sayl al'arib jiiriyadu ilaahay ku saliday biyo xidheenkii ay xidheen ayuu dalooliyay biyihiiba way soo jabeen waxaa soo fakaday wixii biyo xidheen meeshaasi tsunamiyo ayaa ka dhacday dhulkii oo dhan uu baaba'ay aaway beerihii jannadii ay samaysteen aaway guriyihii quruxda badnaa aaway khudradii dhib badan ayaa ka dhacay meeshii farxadii murug bay isku bedeshay qosalkii oo hibbu isku bedelay caafimaadkii cudur buu isku bedelay akhtarkii yaabis buu isku bedelay dhulkii quruxda badnaa falxumo ayuu isku bedelay barwaqadii abaaro ayay isku bedeleen roobkii iyo nicmadii lagu jiray waa lagu kala kacay maxaa yeelay maxaa keenay gaalnimada ayaa keentay dadkaasi meeshaasi way ku baaba'een tsunami ayaa ka dhacday aan la arag ilaahay waa baabi'iyey ilaahay waxa uu yiri faj'alnaahum ahadith waxaan ka dhignay sheeko laga sheekaysto wanaka ka sheekaysanayna sheeko laga sheekaysto oo la yiraahdo waxa soo maray saba reesaba aaw
waxa laga sheekeeyo ayay noqdeen. ilaahay waxa uu yiri wamazzaqnaahum kull mumazzaq waan googoynay buu ilaahay yiri waa la katifay googoyn la googoy yaa la googoyay way markaa maxay ku dambeeyeen war laga sheekaysto midnimadoodii kala tag isjacaylkii cuntadii wanaagii wixii oo dhan meeshaasi dadkaasi way ku baaba'een ilaa ay carabtu marka ay maaragtay mahmaahayaan ay ku mahmaahaan tafarraqu aydi saba sidii reesaba ayay kala firdheen kala tageen kala baaba'een dadkii meeshaasi midka ku ahaa aaway reer khuzaaca way guureen dhulka iyo ciraaq ayay u guureen ansaartii nebiga u kaalmaysay ee madiina deganeed yathrib deganeed ee aws iyo khasraj ka koobnaa iyakuna dhinaca iyo waxay u guureen madiina ayay u guureen ghasaan dhinaca iyo shaam bay u guureen asdi dhinaca iyo cumaan ayay u guureen waa la kala daatay waa la kala googo'ay waa la itaal yaraaday waa la fool xumaaday abaarahaasaa ka dambeeyey silicaasaa ka dambeeyey amni daridaasaa ka dambeeyey intaas oo dhan ilaahu maxaad sidaa ugu gashay ilaahay waxa uu leeyahay dalika jazaynaahum bimaa kafaruu waxaan sidaa u yeelnay buu ilaahay yidhi oon ugu abaalgudnay sababtii iyo ka gaalnimada la yimid sidaa waxaan u galnaa gaalada buu ilaahay yidhi kuwa diintayada ku kufriya kuwa rasuulka ku kufriya kuwa aan garan kuwaasaan sidaa u galnaa wahal nujaazi ila alkufuur walaalayaal qisadaasi cibar iyo duruus fara badan ayaa ku jira xadaaradaasi sidaasay u luntay arsaaqdoodii iyo khayrkii ay ku noolaayeen iyo wanaaggii oo dhan u baaba'ay taasuu ilaahay inooga warramayaa subxaanahu wa tacaala aayadu ilaahay kaga warramaya ilaahay waxa uu yidhi laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aaya waxaa ku sugan buu ilaahay yidhi saba waxaa ku sugan fii maskanihi meesha ay deganaayeen aayad baa ku sugan cibrad baa ku sugan astaan baa ku sugan wax lagu qaato ilaahay waxa uu yidhi jannataani laba beerood can yamiin oo dhinaca midig iyo washimaal iyo dhinaca bidix ayaa ka ahaa beer meeshaasaba meeshii ay deganaayeen aayad baa ku jirta qofka xanuunsanaya uu ku bogsanayay qofka dhibaataysan uu ku dhibaato baxayay meeshaasi aayad baa ku jirta buu ilaahay yidhi cayayaanka waa laga ilaaliyey abeesooyinka waa laga ilaaliyey xataa khudraddu ma qurhmayn aayad baa ku sugan ilaahay waxa uu yidhi waxaanu ku nidhi kulu cuna min risqi rabbikum arsaaqdaa rabbigiin cuna washkuruu lahu ilaahay u shukriya baldatun tayiba meeshiinu waa beled wanaagsan waa dhul wanaagsan wa rabbun ghafuur rabbigiinuna waa rabbi dembiga dhaafa ilaahay waxa uu yidhi sidaasaan ugu nimcayno wanaaggaasi ayaan siinay maxaa dhacay fa acraduu way jeesteen way dhabar jeediyeen fa arsalnaa calayhim waxaan korkooga aan ku soo dirnay buu ilaahay yidhi sayl alcarim tog ama daad ama biyo xidhaankii oo alcarib aad iyo aad u adag ayaa ku soo dirnay wuxuu ka tegay male magaalada gebiga geedihiibuu u jirid gooyey xadaaradoodiibuu u jirid gooyey meeshaasi dhulka ayuu ku masaxay aaway barwaaqadii aaway nicmadii ilaahay waxa uu leeyahay wabadalnaahum bijannatayhim labadoodii janno waxaan ugu bedelnay buu ilaahay yidhi jannatayni dawaatay ukulin waxaan ugu bedelnay laba janno oo waxa ka soo baxaya iyo waxa la cunayo uu yahay khamtin wax qadhaadh weeyaan wa athlin iyo wa caday iyo dhuur waa geedo qodax leh yaa ka soo baxaya caday baa ka soo baxaya khudradii qadhaadh baa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya wax aan micno lahayn ayaa ka soo baxaya iyo ilaahay waxa uu washayin min sidrin qaliil
in yar oo goba gob muxuu ku tari in yar oo goba ayaa ka soo baxaya ilaahay waxa uu yiri dalika jazaynaahum bima kafaru saasan ku ugu abaalgudnay gaalnimadii ay la yimaadeen awgeed waxay ahaayeen marka nicmada ilaahay ka waramayo waxay nabi ilaahay wajacalna baynahum wa bayna alqura allati barakna fiha iyaka iyo dhinacii shaam ee barakaysna waa masaafo aad iyo aad u fog waxaa yeelnay quran daahira qaryado muuqda ayaan ka dhignay buu ilaahay oo la garanayo oo nicmadaha ay ku jiraan iyo meeshaas uu hooyday meesha kale uu hooyday waqadarna fiha sayr socodkiina waan qadarno wala garanaya in misaal loo socda qofkii saaka baxay waxaanu ku niri siiru fiha layaliya wa ayaman aminin habeena la horeysiiyay habeenku waa habeenka waqtiga la cabsado waxaanu ku niri siiru socda fiha arlada dhaxdul socda dariiqyaasha mara qaryooyinka mara maalimo iyo habeeno socda baa la yiri آمنين إنكو آمني كسوغان وحد كعب سانيسان قاطع الطريق كما عب سانيسان حيوان إنعونا كعب سانيسان عدو كعب سانيسان مركاسي واحد إلهدين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا إله السفر كي كالفوقي كالديراء أي إلهدين وحان دونينا إنان كغنيقو إنو صبحو كفقير واسدنا وان كو عاجسنا يعني طريقا سدنا وحان دونينا سلعيو baldaawo xumaan bay doonayaan silic bay doonayaan waxay doonayaan inay dhibaatoodaan bay doonayaan inay dhididaan ayay doonayaan ilaahu kala fogee bay yiraahdeen safarkayaga oo nicmada yar ku hoos jirno naga baqaad ilaahay waxa uu yiri wadalamu anfusahum naftoodii bay dulmiyeen faj'alnaahum waxaanu kayya nabi ilaahay yiri ahadiith sheekooyin ma ka dhignay lagu sheekaysto ومزقناهم بإلهي وان كتفني كل ممزق كتفين أو دمان جوجويني وان جوجويني وان كلا ضادي نبي إلهي إلههم حاسد أوجش إياك حاسد ليبد إياك قالوا إن في ذلك أرنك وحكسجن بإلهي لآيات آيات كسجن لكل صبار مدول أو صبر بدن أو شكور مهدم بدن أي آياتها علامات أطهي إلهي وحكو قرطو أحبتي في الله وحن كفهمينا وكفائدي سنينا دنبي قال لقليو أديقو أمكو مأك وحبا بإنا يا تلكا وحبا بإنا يا ودنكاغا وحبا بإنا يا خيراتك إيا النعمة لغوشيرو أيوبا بإنا يا دنبيقو أديقا إيا ريرك إيا أمدا iyo intaba uu baabiinaya sida awgeed dambiga in laga fogaado waxa kaloon ka fahmaynaa nicmadaha ilaahay uu ku siiyay inaad ku shukridid haddaad shukriyi weydid oo ilaahay ugu mahadin weydid ilaahay nicmada uu ka qaadi waa inaad mar walba ilaahay aad ku shukridid nicmadihiisa subhanahu wa ta'ala waxaan ka fahmaynaa aayaadkaasi in mar walba khayrka la iskugu yeero midnaanta la iskugu yeero يا كفهمينا أو حويا ليسك ورهيو أو أمد اسكو حدناتو وحن كفهمينا إن ليس هباري ويس هباري باعد بين أسفارنا السفر كيجا كلا دايرة بين هذا الإلهي كلا دايرة كلا فوقي أي هذين وحن كفهمينا إنسانكو هدو النعمد يا خير وهلو وكبرى سام هرب وقصو هذا اللي وقوقا وكا ويقوقين محيكو قوقين ومركي النعمد دي هلان وناجي هلان خيركي هلان أي قوقين وكبرين أحبتي في الله قصة داسي قصة سبع دروس بدن حكم بدن أيا كتيرا ونبدن أيا كتيرا قف والبؤ دوني إنو وانتوبو قف والبؤ دوني إنو فكرو عبر أيا كتيرا إلا قال الصبحو إلا أخريو أيا لو باهي هي قصة كلا أي نوصو سعوتا للسعدوا عن وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.